maayarka degmada Xudun Mudane Faarax Cali Ibraahim iyo waliba aqoonyahan Cabdi Maxamed Caatey Awowi ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay sariibad laga hirgelin doono degmadaasi Xudun ee gobolka Sool. ugu horeynta maayarka degmada Xudun Mudane Faarax Cali Ibraahim ayaa sheegay in dhulkan ay dawladda hoose ugu deeqday si sariibada looga dhisi lahaa loona baahan yahay qurbo jooga iyo waliba ganacsatada iyo waliba cid kastoo daneeya danaha horumarneed ee degmada Xudun inay qayb ka qaataan dhisida sariibada casriga ah ee dhulka ay ugu deeqday dawladda hoose ee degmada. halkaas aan uga diyaarinay dhul meel ka baxsan magaalada waa in markaan xukuumad ahaan wixii aan qaban karo waan qabanaa. dadka deegaanka u dhashay eelhina waa inay arrintan caafimaad darrada u keenaysaa ee waxyeelada u ah ayna gacan ka geystaan weeye. waxaa kale oo maayarka degmada Xudun Mudane Faarax Cali Ibraahim uu kormeer ku sameeyay saldhigga dhexe ee degmada Xudun oo dhawaan ay hirgelin iyo waliba xabsiga degmada Xudun. waxaa kale oo maayarku halkaasi ka sheegay in mashaariicdan ay xukuumaddu dhawaan hirgelin doonto oo ay ka mid tahay uu ku jiro saldhigga dhexe degmada Xudun iyo waliba dawladda hoose. loo maayarku sheegay in loo baahan yahay in degmada Xudun laga wada shaqeeyo sidii kaabaha adeegyada bulshada loo soo celin lahaa iyo waliba doorkooda inay ka qaataan ganacsatada iyo waliba qurbo jooga. bilayska horta in la dhisayo oo la dhameystirayo dawladdu way ballan qaaday waxaan dhulkooda ka badan asluub iyo saldhigga bilayska labadaba weyn ka badan yahay deeqay. waxaan u baahanahay in dib loo dhiso saldhigga degmada si loo helo bilayskii degmada waayo bilaysku waxa weeye waa ammaanka cidda sugta cidda isqabata waa cidda kala celisa waxa lagu saxdo waa bilayska meel aan bilays ka jirin nolol kama jirto maamul kama jirayo cashuur lama qaadi karo dadka lama kala celin karo waxa weeye noloshu bilayska ka bilaabantaa waxa ay dhismaha isugu jira laba qaybood sida arkaysaa halkan waxa ka dhisan hal qol oo ah meeshii jeelka ahayd oo loogu talagalay dadka in lagu xiro ciidan asluub meeshu ma leh sariyaha ciidanka asluubta Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in ciidankii asluubta ee degmada waxaa degmada Xudun ee gobolka Sool ayaa waxaa ka socda baryahan Bashir Ducoodiye lagu wada hadashiinayo laba beelo walaalaha oo dhawaan shaqaaqa ku dhexmartay deegaankaasi degmada Xudun ee gobolka Sool. waa Barkhad Cumar Axmed Telefishinka qaranka Soomaaliya degmada Xudun ee gobolka Sool.